السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa idin la hadlayo cali sheekh maxamed oo ku sugan magaalada Jidda gaar ahaan xaafadda Sharafiya. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa wiilkan yar waa wiil xanuunsan. waxaan ka soo qabsaday wadada dhexdeeda waa meel Allahu musta'aan oo gaari ku badan oo shaaric caam la yiraahdo ayaan ka qabsaday oo isku xira Sharafiya iyo Baghdadiya. wiilkan waxaa idinka codsanayaa walaalayaal cidii garanayso cunugan cidii garanayso ama cidii dhashay inay Allahu musta'aan ila soo xiriiraan anigoo ahay cali sheekh maxamed. teleefankaygana waxa weeyaan eber 5 4 eber 2 4 8 4 5. wiilkan magaciisa ma garanayo ma khashiigi karo magaciisa. Allahu musta'aan hooyadii magaceeda ma yaqaano magaca aab ma yaqaano. waxaan ka soo qabanay aniga iyo wiil askari ah ama banto taabid ah waxaan ka soo qabanay meel u dhow xaafadda Sharafiya qalbeerka Allahu musta'aan oo lagu magacaabo suuq bariid u dhaxaysa Allahu musta'aan Baghdadiya iyo Sharafiya. waxaa qabsaday ninka askariga magaciisa waxaa lagu magacaabo boos. wuxuu ugu yiri wiilkan waa wiil Soomaali ah waan xanuunsan yahay waxaan ka codsanayaa inaad gacanta ku dhigtid cidiisna inaad raadisid. wiilkan aad u jeedaan waa wiil ugu jiro shaar iyo sarwaal oo sportis ah. waad u jeedaan wuxuu hadda joogaa waa dukaanka Abubakar Sadiq. waa dukaanka Abubakar Sadiq. wiilkan waa wiil dhunsan. bilaahi calaykum waxaan idinka codsanayaa waa inaad ila soo xiriirtaan ama aad share garaysaan aad gudbisaan gruubyada iyo Allahu musta'aan iyo meel Allah meesha la isku imaado oo baraha bulshada ah. walaalayaal wabilaahi tawfiiq intaas baan idinka codsanayaa. wiilkan waa saad u jeedaan magaciisa waa kana Allahu musta'aan si fiican ila fiiro waa wiil timo jilcan cad ma sha Allah ilka korna waa ka dhacsan yihiin. waa wiil waxaan ku qiyaasaa 6 jir 7 jir. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad share garaysaan gruubyada iyo Allahu musta'aan Allahum iimooyada iyo Allahu musta'aan waa Facebook inaad ila dhigtaan insha Allah. wabilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.